kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena Lewaya Films oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwa haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena Lewaya Films, fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. maqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa atooraha maalmaha dhalinyarada ee ku daateen laguna xanto inuu xiriir kala dhaxeeyo gabadha filim jelista ku xusub ee uu dhalay Saif Ali Khan, Sara Ali Khan, ninka lagu magacaabo Kartik Aryan. xidigan ayaa ku soo caan baxay filimkii la daawaday 2011 ee Beraka Banjana, waxaana director ka ahaa Love Ranjan. Kartik Aryan ayaa ka mid ah dhalinyarada ugu caansan xilligan ee Bollywoodka. xidigan ayaa sheegay in baraha bulshada uu ka gacan siiyay inuu halgamo asagoo ah inuu isku bedelo xidig ka dhex muuqda filimada Bollywoodka. xidigan oo wareysi siinay BBC Asia Network ayuu wuxuu kaga hadlay sida uu ku noqday jilaa iyo wax uu la soo kulmay safarkii uu jiro inuu noqdo aktar caan ah. waxaan iskaga bedeli jiray dharka mashquulaha tareenka iyo mashquulaha ku yaala xarumaha ay ka baxaan tareenada. wajiga ayaan iska dhaqi jiray fresh ayaa inaan iska dhigo, kadibna aan aadi jiray tijaabooyinka filmada. sida dhabta ahna waan ku dhici jiray tijaabooyinka oo kama aanan quusan jirin, haddana waan ka qayb qaadan jiray. xidigan ayaa ka hadlay sida uu caawiyay Facebooka, wuxuuna yiri, waxaan Facebooka ka raadin jiray tijaabooyinka la rabo ee filmada si filimka lagu ogolaado. waxaa ka dooran jiray nooca waxa laga baahan yahay, haddii ay Mumbai tahay nambarka laga wacayo. Facebook xilligaas wax weyn ayuu ahaa, dajarna qaabkaasi wuu isticmaali jireen, waxaana dhihi karaa hab aqli badan. Kartik Aryan ayaa ka hadlay filimkiisa ugu horeeyay uu director ka ahaa Love Ranjan, sidoo kale uu ka helay tijaabadiisa Facebooka. mar kale ayaan Facebooka ka helay, maxaa yeelay si la mid ah tijaabada Beraka Banjana sidoo kale Facebooka ayaa la soo dhigay. waxaana jirta fariin waalan inaan dirayo taasi oo leh waxaan ahay qofka raadinaysay. xidigan ayaa wax laga weydiiyay inuu noqday qof fogaaday marka loo eego filmada uu saameynta ku yeeshay sida filimka Sonu Ki Tinu Ki Iswiri ee la daawaday sanada 2018. way ahayd wax isdhiibid ah, waxaana ii ahayd wax aan aad igu goobaaban, mana ahayn wax habeen dhacay oo waxay qaadatay 9 sano meesha aan maanta joogo. wax xiriir ah ma lahayn, qofna kuma lahayn Bollywoodka. dhabtii inaan ka soo safro MB gaar ahaan Gawarlia oo aan ka soo aado Mumbai waxay ahayd wax adag oo aan ku qanciyo waalidiinteeda. wana sheego inaan rabo inaan noqdo jilaa, laakiin uma aanan sheegin. kaliya qorsheygu wuxuu ahaa inaan Mumbai gaaro. si kastaba ahaatee inaan aqbalaada imtixaanada ka galo kollejyada qaar ee ku yaala Mumbai, waana sameeyay waayo waalidiinteeda ayaa rabay inaan wax barto. filimkiisa Luka Chube ayaa la daawaday sanada 2019, waxaana la waday atirshada Kriti Sanon, waxaana ahayd talaabo kale oo uu qaaday ku dhaxmalminda shirkadda Bollywoodka. xidigan ayaa ka hadlay sida uu arintaasi ugu sahlanaatay. waxay ahayd wax aad u adag, maxaa yeelay bilaabadeeda qofna ma aaminsaneen, maxaa yeelay qofna kama aqaan Bollywoodka. inaan qof ka baxsana ahaana waxaan aaminsanaa xaaladeeda lana qabay qof walba oo ka tirsan Bollywoodka. waxaa 5 sano iyo bar ugu qaadatay inaan fahmo dhaqdhaqaaqa maamulka, la falgalka media ay sida ay kooxdooda ku caawinayaan. ugu dambeyn xidigan ayaa hadda gacanta ku haysta 2 mashruuc, Bol Bulaya 2 iyo sidoo kale Dostana 2.